marka haddii deegaanka keliya reerkan jamciyey ay Wajeer South tahay waxa la idinka doonayaa waxa weeyaan in hiil iyo isgarab taag aad la garab istaagtaan ummadda walaalihiina Wajeer South waa mas'uuliyad caam ah mas'uuliyad khaas ah qof walbayna saaran tahay haddii fariin un la iga qaadayo maanta inta hal la iga gaarsiiyo qof walba oo kumada abtirkiisu maro meel uu doonaba shanta qaaradood adduunka ka joogay aad baan ugu faraxsanahay sharaf gaarna way ii tahay inaan maanta halkan isugu nimid annagoo ehel dad dhalya ah dad dhiig wadaaga ah magac qurana ku abtirsanno aan isugu nimaadno annaga oo ka tashanayna aayaheena ka tashanayna aayaha deegaanada aan degno ee kala duwan ee geeska Afrika isugu imaanay halkan inaan danaheenna wada quraan marino aad baan ugu faraxsanahay waxaan bogaadin u jeedinayaa Mheshimiwa Elias Barashil iyo guddigii tayada lahaa ee ka soo shaqeeyay qabashada shirkan madashan muhiimka walaalayaal sida hagar la'aanta ah ee aad hawlihiina uga soo tagteen oo timaadeen halkani waxa ay astaan u tahay sida aad u qiimeynaysaan wadajirka ummadda ku bahowday beesha kumade waxayna muujinaysaa yididiilaha aan ka qabno mustaqbalka mar haddii aan dhabahaasi fuulnay ogolaanay ku heshiinay inaan si fiican midnimadeena u dhisno taa iyada kaliya ayaan meel ku gaari karaynaa isku duubniba ara lagu tagaabay Soomaali ku maamaada waxaan rabaa mar kale dhamaan inta ka soo qayb qaadatay qabanqaabada intii noo adeegaysa intii isku hawshan maanta aan halkan u fadhino mahad weyn ha ka kaadho ilaahna ha ku kabo miisaankooda aakhira dhabtii anigu waxaan dhihi karaa oon ku faani karaa inaan ahay MP-ga kumade inaan ahay deegaanka la iga soo doortay Wajeer South waan maqlaayay garaadka haday wuxuu yiri dad baa ka maqan laakiin haddii loo eego waa laga helayaa ashqaas baa Allah ka dhigay beeshaasi uu sheegay aan deganayn Wajeer South waa in degan iyo in daris la ah oo aynan ka reebanayn Wajeer South deegaankaas marka ay ku bahoobeen ama ay degan yihiin ama jaar la yihiin inta ku abtirsata beesha kumade isbarasho ayaa muhiim u ah horta hawshan aan wadnaa iyo iska warqab annaga inaan iska warqabnaa aqoon intee la eg bay ka qabaan dadka maanta madashan isugu yimid Wajeer South ama koonfurta Wajeer baarlamaankii ugu horeeyay hal kursi oo baarlamaan bay lahayd Wajeerna waxay lahayd labadii midna wuu tarmay oo shan buu noqday Wajeer Southna halkeedii bay taagan tahay waa aag cadadiisu dhan yahay iyo ballaciisa 22,000 oo kilomitir oo isku wareega xurriyadda markii la qaadanayay oo Ingiriiska uu wadanka ka tagayay 33,000 oo kilomitir oo isku wareega bay ahayd Wajeer South 33daas waxaa ka go'ay wax ku dhow 12,000 oo kilomitir oo isku wareega
wadamo qaar yay la ag tahay waddanka qatar waa 11,000 oo kilomitir isku wareega in waddan la eg meelaha qaarkood baa ka go'day 22,000 waa la wada degan yahay gees walba dad baa degan oo ka soo foofo oo ku xoolo dhaqdo oo danahooda ka fushada wadareemi karaysaan marka deegaan inta leeg marka uu hal xildhibaan leeyahay masalaada uu haysto inay tahay mid aad iyo aad gabaabsi u ah waana xaq darradana haleeshay oo inagu sameeyeen dowladihii isdaba joogga ahaa tan iyo inta aan ka soo gaaraynay xukunka waddanka Kenya soo qabtay maanta oo waddanka uu jaha cusub u dhaqaaqayo isla xisaabtan ay socoto annaguna waxaan leenahay haddaan nahay ummadda Wajeer South ee kumade inaan nahay ummad dulmigaasna aanan ogolaanaynin in wixii hadda ka dambe uu nala sii socdo xaqayagana aan doonayno xaqayagaan u taaganahay waa mas'uuliyad ayna saartay mas'uuliyad rabbaaniya waaye mas'uuliyad aan ka dhaxalnay doorashadii ummadayadana dooratay intii iga horeysay ee mas'uuliyiin ah ee maanta halka fadhiyay qaarkoodna ay fadhiyaan mid walba arintaas u helana maantana u helan yahay anigana aan garab ugu ahay hormuudna ugu ahay marka haddii deegaanka kaliya reerkan jamciyey ay Wajeer South tahay waxa la idinka doonayaa waxa weeyaan in hiil iyo isgarab taag aad la garab istaagtaan ummadda walaalihiina Wajeer South waa mas'uuliyad caama mas'uuliyad khaasa ma qof walbayna saaran tahay haddii fariin un la iga qaadayo maanta inta hal iga gaarsiiyo qof walba oo kumada abtirkiisu maro meel uu doonaba shanta qaaradood adduunka ka joogay walaalayaal talooyin badan baa halkan lagu bixiyay maanta sidii aan u midoobi lahayn didibada ugu aasi lahayn midnimadeena iyo sidii aan hore ugu talaabsan lahayn halun baan anu ka digayaa waxaan joognaa xilli isbedelayo oo jiilalkii hore iyo jiilalka dambe gap ama mataqaanaa wax weyn oo mataqaanaa u dhaxeeyo mataqaanaa farqi waa carabi wali Soomaali baan raadinay farqi u dhaxeeyo farqigaas marka si loo soo yareeyo farqiga marka si loo soo yareeyo mas'uuliyadayna saaran ee inaga saaran joogtaynta midnimada beeshana waxa weeyaan in qof walba uu ku dadaalo in inta ag joogtee da'yar ah uu ka dhaadhiciyo annagoona cidna duulaan ku ahayn annagoona cidna u tashanaynin laakiin macnaheedu waxa weeyaan haddii aan halkaa istaagno waa ruqaansi aan u sii ruqaansanayna Soomaalinimo iyo mataqaanaa midnimo guud oo ummadeena oo dhan ah marka halkaas inaynu wax gaarsiin haddii aan rabno generationkan hadda soo kacaya social media generationka iyo jenziga aad arkaysan maana wala khalkhalka ay wadanka galiyaan ha laga dhaadhiciyo kumadanimada insha Allah waxaana iyaguna arinta iyada xubin weyn ka noqon karaya ama mataqaanaa door weyn ka ciyaari karaya kuwa iyagu baraarugsan ee generationada ka tirsan inay u istaagaan oo ay mataqaanaa oo waliba la helo siyaabo mataqaanaa novel ama cusub oo looga dhaadhiciyo iyadoona mataqaanaa la maraynin annaga reer hebel iyo annaga reer hebel ah laakiin inaan nahay beesha kumade oo aan doonayno inaan midowno Soomaali aan wax la qabsano ummadaha aan wadamada kale la degannahay iyo halkan Kenya aan wax la qabsano annagoo midaysan oo hal cod ku wada hadlayno waa in arinta iyada joogtaynteeda laga qayb galiyo jiilalka soo koraya iyo ubadkeena
ayaan ku talin lahaa waxaa kaloon ku talin lahaa in arrintan ayna naga noqonin shir aan KICC isugu imanay oo keliya oo inaga noqoto wax aan aaminsannahay oo aan doonayno in aan ku camal falno ku midaysnaano danaheenna annagoo eegayna aan hore ugu tallaabsanno wixii hadda ka dambeeyo oo qof walba mas-uuliyadda ka saaran uu ku aado insha allahu tacaala waxaan rabaa in aan bogaadin ballaaran u jeediyo guddiga Mombasa ka dhisan ee baashin kumade dhabtii anigu mar baan la kulmay xubnaha ka tirsan jaaliyadda siyada oo shaqooyin lixaad la qabto inta u dhaxayso Vanga iyo Lunga Vanga waa xadka Tanzania iyo Kenya ay wadaagaan ilaa Lunga Kiunga ilaa Lama dhaxdooda inta degan u adeegto isla markaana Taita Taveta inta u dhaxaysa ilaa Kwale oo ay ka mid yihiin dad xoolo dhaqata oo qaarkood abaar ka soo baxay qaarkood xoolahoodii la soo cararay intaas la daba taagan tabarruc iyo wax walba oo taageero ah oo ay u fidin karaan dhiigga ku qaybsado magta ku qaybsado isku weheshado ku midaysan dhabtii aad iyo aad baan ula dhacay waana arrin ma taqaanaa waana arrin u baahan in lagaga daydo wax badan oo ay noo faa'iideyn karaanna way jiraane honorable Shiil iyo ma taqaanaa tiimkiisa il gaar ah loo yeesho guddigaasi Mombasa wax badan baa laga baran karaa insha Allah taala intaasaan ku soo gabagabaynayaa